Vinicius Jr. miyuu ka tagayaa Real Madrid? Cadena Ser oo soo bandhigtay xog sir ah. Wargeyska Cadena Ser ee ka soo baxay Spain ayaa sheegay in maamulka Real Madrid uu si dhab ah oo xoog leh uga shaqeynayo inuu cusboonaysiiyo heshiiska xiddiga reer Brazil Vinicius Jr. inkasta oo xiriirka u dhaxeeya isaga iyo tababare Xabi Alonso uusan maalmahan fiicnayn. Sida lagu sheegay warbixinta, Real Madrid weli waxay Vinicius u aragtaa tiir muhiim ah oo mashruuca kooxda ah, waxayna hubaan in heshiis cusub lala gaari doono dhawaan. Vinicius waxa uu aad ugu dhawaa inuu saxiixo heshiis cusub, balse wadaxaajoodkii ayaa hakad galay kadib markii Xabi Alonso loo magacaabay tababaraha kooxda. Sidoo kalena waxaa jira khilaaf ku saabsan mushaarka oo maamulka u arkay mid aad u sareeya. Heshiiska hadda ee Vinicius wuxuu dhacayaa xagaaga 2027, laakiin Real Madrid waxay rajeynaysaa inay sanado kale oo dheeri ah ku kordhiso heshiiskiisa si ay u hubiso inuu sii ahaado xiddig muhiim u ah kooxda muddo fog. Kooxdu waxay aaminsan tahay in xal laga gaari doono khilaafaadka jira, maadaama ay rabaan in Vinicius uu sii ahaado mid ka mid ah furayaasha qorshaha kooxda, gaar ahaan iyadoo uu yahay mid ka mid ah weeraryahanada mustaqbalka ee Real Madrid. Duhur wanaagsan saaxiibayaal, meel walba aad naga daawanaysaan. Intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa warbixintii koobneed ee aan ugu hadlayay wararkii ugu dambeeyay ee kubadda cagta. Haddii aad ilaa dhamaadka muuqaalkan la soo gaartay, ilaabna inaad muuqaalka like saarto, sidoo kalena sii share gareyso. Haddii aad nagu cusubtaan nagu soo biir oo ka mid noqo asxaabta nagu xiran. Mahadsanid.